daawadayaal qaybtan waa qaybtii saddexaad waa 16 Abriil waa 2020 oo markale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay isla markaan ugu horeysiyay shirkii golaha wasiirada ee gaashaanbuurta NATO waxa ugu dambeyntii laga soo saaray war qoraal shirka oo xagga khadka telefoonka ilaa xalay goordama soconayay ayaa waxa lagu heshiiyay in gaashaanbuurta NATO ay ka dhex muuqato dagaalka lagula jiro xanuunka COVID-19 sida lagu qoray war murtiyeed ay soo saareen oo lagu soo qoray barta loo yaqaan Anadolu Agency ee dalkaasi Turkiga wakaalada dalalka ayaa sidoo kale waxa ay wasiirada gaashaandhig hadalada elgasi ka jeediyeen midba uu midka kale uga mahad celiyay taageerada lixaad kale dalka Turkiga ayaa soo jiitay hadaladii ugu badnaa halkaas laga jeediyay kadib markii wasiirka gaashaandhigga ee dalka la yiraahdo Britain uu ku dhawaaqay in dalka Turkiga uu gutay waajibaadkii ka saarnaa marka ay timaado inuu la dagaalamo xanuunkan COVID-19 Ben Wells ayaa waxa uu sheegay in abaal aan dhicin isla markaana aan dhici doonin ay u hay doonaan Turkiga oo ku tilmaamay 250,000 oo shay ay soo gaarsiiyeen dalkiisa oo u badan qalabka loo yaqaano personal protective equipment PPE ama qalabka dadku isku badbaadiyaan ee ah kuwa lagaga gaashaanto xanuunka kuwa qalinka lagu suubiyo kuwa afka lagu xidho afka lagu jeebto iyo sidoo kale kuwa isku joogga ah ee ayagana la isku badbaadiyo waxa uu sheegay in dawladdiisu ay weligeed xasuusnaan doonto wuxuu ku sifeeyay waqti adag oo ay Turkigu la qaybsadeen dhanka kalena dalalka ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arinta Turkiga iyo u dhaxaysa dalka Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa shirka ka hadlay isla markaana waxa uu sheegay in ay dawladdiisu ay weli daneynayso in Mareykanka ay wadahadal la furto taasoo ay garwadeen ka noqoto gaashaanbuurta NATO si loo xaliyo qadiyada ka tafantay gantaalaha S400 oo uu sheegay inay yihiin qalab ay u baahan yihiin dalka Turkiga goor horena ay soo daabusheen qaarkood gaashaanbuurta NATO ayuu ugu baaqay inay garwadeen iyo waliba dhexdhexaad ka noqdaan qadiyada wuxuuna sheegay in qalabkan ay u hayaan cadeyn ku saabsan in uu san basaasaynin diyaaradaha la calmaday ee hilaaca ka dheereeya ee F-35 loo yaqaano ay soo biso shirkadda Lockheed la yiraahdo ee dalka Mareykanka taasoo Mareykanku u hakiyay kolkii uu sheegay inuu walaac ka qabo in laga yaabo qalabka dalkaasi Russia lagu soo suubiyay ee Turkigu haysto inay basaasaan isla markaana akhriyaan qaar ka mid ah ciwaanada halista ah ee ku saabsan barta laga helo sida loo suubiyo iyo waliba raadaarka saxda ah ee loo mari karo wadaynta markay noqoto diyaaradaas in la soo rido taasoo iyadu ay Mareykanku doonayaan inaan abid lagu dhufan ama la haleelin kantaal si kastaba noqotee dawladda dalka Turkigu waxay sheegaysaa inay wali ayadu taagan tahay baahidii ay u qabtay kantaalahaas S400 halka nagala soo daawadayaal wararka waxaana dhinaca diblomaasiyadda xagga naruurada xanuunkana aan hadaynu eegno iyo dhinaca markaasi soo kabashada dalka ka soo kabanaya dalka Itaaliya ama Talyaaniga dalka la yiraahdo ayaa hoos u dhac wali hoos u socota dhimashada dadka xanuunku maalinta ka dambaysa shalay oo kale waxa ku dhintay 602 maantana waxa ku dhintay 578 taasoo ka dhigan in uu hoos u dhac aad u weyn ku yimid waxa u dhaxeeyay labadii maalmood ee ugu dambeeyay baa leeyay oo markaasi hoos u dhac aad u weyn maaha laakiin waa xoogaa hoos u dhaca bal oran karaan dhexdhexaada 78 iyo 600 iyo 578 iyo 600 waxa weeye labo ayaa markaasi ay kala hayeen labadii maalmood waxaana la sheegayaa in sidoo kale soo daadashada dadkii sida tarab ku soo daadanayay ayaguna hoos u dhac ay ku socoto wararka ugu dambeeyay waxay sidoo kale sheegayaan in ay dalalka qaarkood saas oo kale ay arintu tahay oo qaarkood ay hoos u dhacayaan sida dalka Isbaaniya asagoo dalka Isbaaniya oo markii hore isjaladay oo dib haddana u soo kacaamay dhinaca dhimashada xanuunka haddana Talyaaniga iyo dalalka ay kamid yihiin ayaa xanuunka hoos soo dhacaya dalka Mareykanka ayaa wali aan wax isbedel lagu haynin marka la eego dhinaca dhimashada iyo waliba dadka soo ridaysiis sidoo kale waxay hayaan maraakiibta Faransiiska oo isagana xanuunka ka dilaacay gaar ahaan markabkii ugu kalsoonida badnaayeen ee xambaaraha nukliyeerka iyo diyaaradaha turti ku ritay halka dagala socotaan daawadayaal oo wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dadka reer Turkiyana waxay aad uga caroodeen filin hordhiciisa ay soo saartay shirkadda Netflix la yiraahdo ee inta badan aflaanta maamusha ee dalka Mareykanka laga leeyahay taasoo markii labaad u muuqatay inay ka careysanayso dadka muslimiinta bar Twitter oo magaceedu ku qoran yahay oo ay ku qoran tahay Turkish Netflix ayaa la soo dhigay goosgoos u muuqda wax lagu sifeeyay filin la yiraahdo Love 101 filinkan Love 101 loo bixiyay ama jacayl 101 ayaa waxaa laga dhex arkayay afcaal aad u fool xun isagoo ka tarjumaya laba nin oo cilaaqaad sameynaya taasoo la sheegay in afka Turkigana lagula soo qoray oo loogu talagalay qaybta Turkiga in laga daawado ama filmaanta Netflix ay ku sii deyso dalka Turkiga laga daawado dadka ayaa caaridaad iyo cara kala dul dhacay shirkadaasi aflaanta samaysa iyagoo sheegay inay tani ku tahay ay iyo aflagaado in dhaqamada foosha xun ee reer galbeedka lagu soo waarido dalalka caalamka Islaam ay tahay ku dhac ay kula dhacayaan wax kasta oo xun ayaa la yiri dalalka caalamka Islaam madaxa guud ee warbaahinta iyo
iyo TV-ga qaranka ee dalkaasi Turkiga Abubakar Sahin ayaa wuxuu yiri uma dulqaadan doono in laga sii daayo dalka iyaga iyo warbaahinteeda waxa ka dhana ayuu yiri qiyamka iyaga iyo wuxuu ku sifeeyay naf ahaanta iyo jismiyada taasoo ayuu yiri wax damiir xumo ah oo dadku ay sameynayaan waxaana tan ay ka dhigan tahay ayuu yiri in la doonayo in lagu dayo dadka muslimiinta 24 bishan ayaa loo qabtay filinkaasi in lagu soo day doono dalka Turkiga oo ah filin taageeraya in ay wax isweydiistaan ragga taasoo ayaa la yiri mid aad iyo aad u foolxumo ugu ah dalka Turkiga dad boqolaal kun gaaraya ayaa aflagaada xooggan u geystay shirkadda Netflix waxaana ugu baaqeen dawladda Turkiga inay dalka ka mamnuucdo gabi ahaanba in aflaanteeda laga daawado xataa kuwa caadiga iyo sidoo kale in xataa warbaahinteeda iyo website-yada halkaas laga gaaro mid kamid ah dadka ayaa waxa uu soo qoray oo uu yiri waxa u muuqataa in ay tani tahay ciyaartii ugu dambeysay ee akhlaaq dilka magac dilka iyo sharaf dilka islaamka lagu sameeyo oo dadka LGBT-ga la yiraahdo ay doonayaan in ay inagu soo faafiyaan ayuu yiri tani waa cay ka dhan ah islaamka waana cay ka dhan ah dhaqankeena iyo qiyamkeena waxayna tusasaa in Turkigii oo ahaa dawlad weyn lagu soo dhowriday ayuu yiri Umar Faruq oo dadku aad u jeclaadeen hadalkiisa markii uu saayiri Netflix waxay markale isku dayaysaa inay caadiyeyso ayuu yiri hab dhaqanka foosha xun oo inooga dhigto jacayl inta ciwaan uga dhigto buudi wax aad u xun aan jacayl ahayn uu yiri isla markaana wanaag ahayn si kastaba noqotee mid shirkadda ayaa waxa ay ugu yeedhay email ay soo dirtay in ay dadku xubsadaan iyagoo sheegay in ay tahay in la kala hubsado bal horta inay shirkaddu leedahay goosgooska iyo in kale si kastaba noqotee shirkaddu may beenin in iyadu goosgooska leedahay haatan ama filimka ee goosgooska soo deynayso Usman Saklik oo asagu mid kamid ah dadka warbaahinta ka howlgala dalkaasi Turkiga ayaa waxa ugu yeeray shirkadda Netflix in ay tahay cadowga islaamka wuxuu yiri waa cadowga islaamka waayo wuxuu yiri hadda ka horna waxay soo daayinayeen oo hadda ay ka hadlayaan filil Messiah loogu yeeray buu yiri kaasoo ay doonayaan buu yiri in ay xadiista iyo quraanku sidoo uga warramayo si aan ahayn ay uga warramaan imaanshaha iyo soo degitaanka Nabi Ciise naxariis iyo nabadgelyo korkiisa yeelay taasoo la jeedo in Nabi Ciise habka uu soo degayo sida uu imaanayo goorta uu imaanayo iyo sida uu wajahayo markaas kuwa adduunka kharbudaya ay tahay nasuus cad taasoo markaas uu duur xulayo in ay iyagu markaa ay bowsadeen si xun waliba ay u bowsadeen si wacan isa usubin wararka walaal dhinaca dunaasiyada Afrika ma qodnee boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud intii uu talada haystay hadeerto muddadii uu ahaa boqorka dalkaasi waxaa la sheegay in uu dilay ama la daldalay dad gaaraya baa la yiri 800 oo qof waa intii boqor Salman uu qabsaday talada oo ka qabsaday markii walaalkii geeriyooday boqor Cabdallah Allah wana xariistay 2015 ilaa iyo hadeerto waxaa la yiri 800 oo qof ayuu dilay inta in leeg baa la yiri markii uu talada haystay boqor Cabdallah dadka la dilay waxay ahaayeen kala badh 423 qof ayaa dil iyo daldalaad lagu firiyay hadaba Sacuudigu dadka uu dilo waxay marka u horeysay ahaa jireen ama u badnaa jireen dadka gala dambiyada ka dhanka dhaqanka oo ay ku jirto dambiyada waaweyn sida inuu qofku qof dilay inuu qofku kufsiga waxa loo yaqaan ka ganacsiga daroogada iyo sixirka hase yeeshee waxaa la sheegay dadkan hadeerto uu dilay boqor Salman badankoodu inay yihiin dad loo dilay arrimo siyaasadeed iyo arrimo afkaareed waxaana kamid ah dad loo dilay baa la yiri in ay wax ka sheegeen oo baraha bulshada ay kelimado kaga qoreen wax lagu sifeeyay boqorka dalka oo la yiri waxa ay caayeen boqorka kadibna dil bay ku mutaysteen qaar kalena arrimo siyaasadeed oo Maxamed bin Salman uu kiciyay ayay ka soo horjeesteen kadibna surka laga guray inta badan dadkaasi waxa la sheegay qaarna waxa lagu gooyay seef oo madaxa laga gooyay qaarna waa sidaas waxa sheegay ururka fadhigiisa yahay dalka Britain ee Reprieve la yiraahdo madaxa guud ee ururkaasi Maya Fow waxa ay sheegtay in sida u muuqata uracad ay tahay war iska cad in dawladda dalka Saudi Arabia ay qaaday wado jahanimo ah oo uu kasbayo Maxamed bin Salman oo asagu u eegnin doonaya inuu dhiig falaxsho Maya waxa intaas ku dartay in warbixintooda sidoo kale ay ku ogaadeen in hubka ugu badan ee loo adeegsado dalka Yemen aan dhaho laga iibsado dalalka Talyaaniga dalka UK iyo waliba dalal kale oo reer galbeedka dalka UK 8 bilyan lacag ka badan ayuu ku iibsaday hub oo hub kaga iibiyay beeraha Sacuudiga oo ay qaateen oo Sacuudiga ku siiyeen hubahan u siiyeen taasina waa arrin khatar ku ah
ayaa lagu yiri warbixinta arrimaha dhinaca marka ay timaado baa la yiri ka hortaga tacadiyada Sacuudiga ay ka geysanayaan dalkaasi hay'adda la yiraahdo British Airspace ee PAI loo soo gaabiyo hubka 18 bilyan 7.7 bilyan in ay hub ku iibiso oo dad lagu gumaado waa arrin aad u foolxun baa lagu yiri wargeyska la yiraahdo The Guardian oo isaguna warbixin ka helay shirkadaasi la yiraahdo PAI ayaa waxa uu sheegay in uu muuqdo in ay shirkadaasi ay iska indha tirtay qorshihii loo yaqaanay maxkamadda abiilka ama maxkamadda raafaanka ay ku qaaday shirkadaasi ay tiri inaan hub laga iibi karin dalka Sacuudiga oo ay u adeegsadaan shacabka reer Yemen inay ka boodeen taasoo ay xareysay ama ay dacwadaas ay hore u xareysay ururka ololaha ka dhanka ganacsiga hubka loo yaqaan The Campaign Against Arms Trade ee kaad loo soo gaabiyo kaasoo sanadkii hore ku guuleystay in la hakiyo 3.11 bilyan oo lacag oo Sacuudiga ka imaanaysay oo hub lagu isticmaalo Yemen loo waaridi rabay waxaana la sheegay in dambiyada dhacaya dalka Yemen ka dhacaya ay yihiin kuwa la isku kaashaday qolana ay ka suuq iibsanayso hubka oo ay ka lacagaysanayso ka faraq qabsanayso qolana ay dhiiga ku faraxlanayso 100,000 oo qof oo shicib u badan baa ku dhintay dagaalka Yemen 16,000 oo kamidana waxa loo maleynayaa inay caruur da'yar yihiin baa leeyahay sida ay sheegayso hay'adda la yiraahdo Yemen Legal Center for Rights and Development oo iyaduna warbixin ay soo saartay Horfadhi Media ay aragtay maalintii xadahayd halkan nagala soo tantaawadayaal wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ee Faransiiska asagana mid ka mid ah maraakiibta waaweyn ee tuurta ku rita diyaaradaha dagaalka uguna caansan dalkaasi ayaa la sheegay in xanuunku uu ku faafay isla markaana uu ka qarxay sida uu sheegayo mid ka mid ah waaxda dhinaca gaashaandhigga u qaabilsan markabka weyn ee xambaaraha ay la yiraahdo The Charles de Gaulle waxaa la sheegay in 668 badmaaxe oo ka tirsan ciidanka saaran markabkaasi ee 2,000 ku dhow xanuunka uu afeeyay taasoo ka dhigan in askarta kale oo dhan laga baqayo in xanuunku afeeyay markabkan oo ka soo xamaartay isla markaana dib uga soo ruqaansaday badweynta Atlantic ayaa waxaa soo garab orday laba ka mid ah maraakiibta ayaguna qaarkoodna ciidanka qaadaan kuwa kalena ay qoosaan badda dhexdeeda ay ilaaliyaan maraakiibta noocan oo kale nuclear ka xambaarsan kaasoo la sheegay inay dusha kala socdeen ka hilaadinayeen bal in xaaladda dadka halkaas ay sii darsato haatan waxaa lagu xukumay in dhammaan askartii halkaas saarneed oo dhan la karantiilo oo meel gaar ah lagu xajiro taasoo la sheegay in loo kaliyeenayo baa leeyahay dadkaasi sababo la xiriira xanuunka ku faafay dawladda dalkaasi iyo madaxweynahooda Emmanuel Macron ayaa lagu eedeeyay in aysan waxba u qabanin askartaasi maaha markabkii ugu horeeyay ee kamid ah maraakiibta ugu waaweyn hubka nuclear-ka xambaara diyaaradahana tuurta ku rita ee xanuunkan ku faafo gorsii horeysay ayaa markab dagaal oo uu leeyahay dalka Mareykanku waxaa ku dhacay sidan oo kale xanuun qayladaan baana ka soo yeedhay taasoo ka sabtay in buuq dhinaca militariga uu ka yimaado arrintaasi militariga ayaa ka xanaaqay markii dambe in xogtooda banaanka u baxday maadaama aan la ogolayn in militariga arrimahooda caafimaadka iyo arrimahooda xasaasiga ah aan la faafin warbaahinta lala wadaagin marar badan gaar ahaan sharciga dalka Mareykanka hay'adda Amnesty International waxa ay cambaareen kale iyo dambiye kale ku heshay dalka Qatar oo indhowtaba lagu xamanayay inuu gacantu galeenayo wax lagu sifeeyay dadka danyarta iyo dadka xoogsatada ah dalkaas ka shaqeeya iyadoo dalalka khaliijka si guud alaaba loogu eedeeyo inay u daran yihiin dadka shaqaalaha ah iyo dadka dalalkooda ka xoogsanaya ayaa haatan Amnesty International waxay sheegtay in ficil aad u xun uga kacay dad kasoo xamaalasho tagay dalka Nepal ee Koonfurta Asia waxay tiri sida muuqata hay'addu waxaanu helay cadeymo aanu la fadhiisanay qaar ka mid ah shaqaale laga soo celiyay dalka Qatar oo muujinaysa in ficil aad xun loo geystay dadkana waxaa la sheegay in laga soo waariday iyagoo shaqeynaya warshado ka shaqeynaya kadibna inta qorqabad lagu soo qabtay la geeyay meel dad badan oo ka buuxo kadibna la silciyay mid ka mid ah dadkaasi ayaa u sheegay hay'adda xuquuqul insaanka u dooday Amnesty International in intii ay ku sugnaayeen meel lagu xareeyay oo ay ku sugayeen in la masaafriyo lagu silciyay nolosha oo ka mid ah in gaajo lagu dilay hal xabo oo rootiya ba 24 saac baana la sii jiray ayuu yiri mid ka mid ah dadkaasi oo la hadlay ku-xigeenka madaxa guud ee arrimaha howlgallada hay'addaasi Amnesty International ninka la yiraahdo Steve Cockburn oo ah ku-xigeenka markaasi xaaladaha caalamka loo yaqaan global issues ninka ku ah markaasi deputy director-ka ama agaasima ku-xigeenka wuxuu yiri
tani waa walaac kale oo muujinaya in dalka Qatar uu ku tumanayo mar kale xuquuqda dadka u shaqeynaya laakiin dawladda dalka Qatar ayaa war qoraal oo degdeg ah oo ay ka soo saartay waxay ku sifaysay arrintu inay siyaasi u jirin war qoraal oo ay soo saartay waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kale waaxda xiriirka dadweynaha waxay sheegtay in dadka la musaafiriyay ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalal kale baa dhiri oo aan ahayn muwaadiniin dalkooda u dhashay si adraadeedna ay jabiyeen axdiga dhinaca waxa la yiri bandowga ee dalka saaran kadibna ay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah inay ganacsi aan la ogoleyn ay ku faafinayeen dalka taasina ay keentay in sharciga gudaha dalka Qatar lagu qaado waxa la yiri tani waa been in dadka si xun loola dhaqmay waxaan ku celinay dalalkoodii hooyo ay u dhasheen ma jirin cadaadis u gaaro aanu saarnay sidoo kale ma jirin inaanu xanuujinay dadkaasi ama inaanu u diidnay dhaqaalahoodii laakiin dadku xitaa waxay sheegeen in alaabahoodii iyo boorsooyinkoodii iyo dharkoodii laga soo dafay oo gabi ahaanba aan dib loo eegin tan waxay imaanaysaa iyadoo Qatar la daba socdo eedeymo aad u waaweyn iyadoo dhawaana la sheegay in FIFA guushii ay ka gaadhay inay qabato koobka ay ku qabato koobka adduunka 2022 ay Qatar gadatay oo ay beesa siisatay inta ku joojiya maanaal